jamhaddaasoo ay kaliftay cadaalad darro baahsan oo naga heshay maamulka Somaliland maadaamaanu taa aragnay waxaanu go'aansanay inaanu ka baxno gabi ahaanba maamulka Somaliland jamhadda waxaa ku dhawaaqay annaga oo ah beesha Muuse Abakor waxaanu garanay inaanu annagu maamulka iyaga jisano waxaanu garanay inay looga qaado ciidankeeda goobaha aanu iskale halkaa iyo xiis ilaa iyo bedela naga degan ilaa Burco ilaa iyo Kaabo ilaa Laascaanood ciidamada jooga waxaan leenahay hanooga qaado Somaliland waxa kaloo dhacday arrimaha nagu kalifay waxa kamid ah markii la laayay saraakiishayadii guud ahaanba uu ugu horeeyay Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud oo lagu dilay Berbera oo qaran dhani u tashaday dawladuna wax tallaabo ah oo aanu ku qanacsanahay ilaa hadda aanay ka qaadin waxa ku xigay waxa lagu dilay Laascaanood isna wax allaale wax laga qaado ma jirto kii ku xigay oo u dambeeyay waxa la yiraahdaa Xuseen Maxamed Saalax waxa lagu dilay tuulada Qarmale ilaa hadda wax allaale wax laga qabtay ma jirto taa waxa noo dheer caburin lagu hayo madax dhaqameedadayada guur madow oo kale habeen dhaweyto maxkamadda la soo qaabilo horena laba jeer horena waa la xiray waxaan leenahay lamana xili karo lamana caburin karo ta kale noo si dheer waxa kamid ah saraakiishayadii noogu jirtay ciidamada yana kuwaan hareera taagana oo anigu aan kamid ahay oo Somaliland si yar looga wada saaray qofba kabadana mid la mariyaan dawladda Somaliland waxay noqotay waxaanu go'aansanay inaanu samayno goonisu taag haddaanu nahay qaranka Muuse Abakor goonisu taag iyaga cid kasta aanu gacan saar la yeelan karo markaa jawaabtana cid kasta u furan tahay jeclaha hadda waxamada ciidamada u gaar kara anigu waxaan sarkaal kamid ah ciidanka waxaan hayay xil guuto taa anigoo haya dhaawac baa la kulmay dhaawacii ugu dhacay waxaa layla kaashaday in markaa la cusbitaal ku maqan fakad laga soo diray oo la ii soo qaado magacaygii Caaglaahaan cadaalad xumada daraaddeed caaglihii ninbaa igu haata bilino jaranka ciidanka qaranka wuxuu kaga qaatay 5 milyan 5 milyan sideed baan nahay sideed diin jaranka halku kaga talaabsan lahaa dambiilaha inuu ka waajib qaato oo sharciga mariyo wuxuu ku urursaday inuu mushaarka ka daboosho halkii uu ka soo saaray 5 milyan cadaaladda halkaas maraysa ciidankiina saas u burbura waa ka horaantiisi hadday boolis ahayd hadday military ahayd waa kuwa inta kale way soo socota waxaan ugu baahaynaa ciidanka qaybtiisa kale hadhay Muuse Abakor halka ay dib u milcsanayaan waxay ma jiraan ku soo biiray jabhadda hadda waxa laga helay gobolka Sanaag galbeedkeeda jabhadda maanta halka joogta ee ku dhawaaqday magaca Muuse Abakor iyadoo wixii kaliftay ay sheekeen saraakiisha joogtay ee hore u joogtay aanay waxba ka tagin waxaan ku daraynaa ciidamada ka jooga Fadhigaab Eelafweyn Garadag Dararweyne in si degdeg ah uga qaato 3 shaqo gudahooda muddadaas aan loo qabanaynaa inta wax raacda xasuuqii ka dhacay dadka shacabka loo geystay weli gacan ku dhiglayaashii ay joogaan Eelafweyn aan dawladdu wax tallaabo sharci ka qabatay aan jirin taa wax si raacda area ay ka dhacday xasuuq ka dhacay iyana wax tallaabo ah dawladdu aanay ka qaadin jirin waxaan leenahay Muuse Abakor waa badan yahay biciide oo kaliya ayaa dee badan inta deegaan cid ay tahay biciide la siiso talo ku qabsaday wax ku qabsaday waa in wax googoostay koofiyad bacle wax la yiraahdo koofiyad baclaha biciide iyo dawladda ka soo jeedaba inaan lugsaan gacan biro ugu qaban lahayn ayaanu halkan maanta hawsheeda ku haynaa taasoo biciide iyo dawlad iyo ragba say isu baran lahaayeen sida ay soo sheegeen mas'uuliyiintu jabhadda
muuse abukor qaranka muuse abukor waxaan halkan ka sheegayaa oo kale oo somaliland u sheegayaa iyo waxa mas-uuliyiinta isku sheegaya lewan mas-uuliin baan ka nahay madax dhaqameedkayga uu ka mid yahay boqor cismaan buurmudug dib dambe laguma hajiri karo xarig dambena laguma xiri karo haddii ay wax kastaba ha ahaatee gacan bira baanu kaga jawaabaynaa dibna lama ruqsan doono waxa ay wado somaliland waxaan halkan kaga hadlayaa sida ay sheegeen saraakiisha iyo ciidanka muuse abukor annaguna haddaanu nahay madax dhaqameedkii siraadi waa soo dhaweynaa waan ku raacsannahay sidaa uga hadleen dawladda xaggeeda dawladdu waa 30 jir 5 madaxweynena waa soo martay 5 madaxweyne soo maray iyo dawladda 30 jirkaaba حقوق بان كيجيني ودي بحوي دلك والوسو هالجمي هذا ما يقرن كموسى أبوكر هذا كبيري وحن ولد كل من السنين حاجة أنا قصدي حاجة أيوه حديث وينتل محمد القرية على هذا إلى يجوا حوجي الدين يقدروا دوي أنا أقول سؤال كان بان طبعا حينو دولة دي صدق إنه يولد دي ليش كده واحد يقول قدام بسركال كده أرملة يعني صح أرملة دولة ده أنا وحبك قبل كل كسيورية الوالوج جاي سركال كبير بريل جود ليه وكله والوج جاي وحصل دولة وحلا وحي كقبتي وحي كري وحنا وحنا بدنا لما هاي كلاس أنا وصلنا لبودي يودع هي اللي تركال وحيابها صور المواطنة شان ولكن أنا ما قرني سا لقطت وانا يقرن كا ليا موسى أبوكر فراكيش ندي هدي اللب أنا قادر كذا بحيا وسود ويننا وسود ويننا أيضا كا يجبهدا وهم السوريين وانا بريانين والسلام عليكم ورحمة الله أنا جو أحمد الخدام مرح رقمات كريرك أنا جو قاد ليا في كريات جودة كراها بس وحلايا أنا حكومة المسؤول شيء إن أنا تشرين كور يقول كذا ما أنت وحبيه ذلك واللوجي سويه واللوجي إن قايبنا ذلك اللي دسيه ذلك ما روح وارك أو ضي جبلي ما حق جبلي أنا أقول غير سمة ترمي لكن كي يجي واللوجي يسلوه كذا وضيع وقرك أنا وقراده أنا ما أذكر هدي لا يا أبو قرب وقرب كي طلاب الشرعية مقاطعة عيرا كان جلبة هذه طموح قليلة ما راح نترك كيلي هو باش هبرجع له حنا يلا قطها دولة الحرب حريرنا كل ما حريرنا مقاوة حنا دلنا موسى ووجه سرقال كيلو قد باشي وحيله هذان لقى قاعدة ينتيو وحنا نقدان إن وضير قبائل كواكس وقايب قلان وأهل نقدان حير نويا لين نسبح نسيتلو كودي سرقال عبد الرزاق اسمه محمد اللي قلت له باش قبيل كوت الشطي كان قد ليش ما أنت ما حدنا هرجيسي تشوفين وأقول قارب يسقى سيربوا سردون